la yiraahdo ganacsiga xiriirka ugu weyn dalkan Soomaaliya u leeyahay waxa Soomaaliya la keenahay waxay ku yimaadaan dooyo iyo maraakiib ka timaada Dubai iyo Abu Dhabi ka yimaado waxa dalkaani runtii ganacsigiisu ku dhisay kumayaal Soomaaliya ayaa ka shaqeeya oo ka shaqeysta ganacsi ku leh deegaan ku leh saas daraadeed xiriirkoodu waa xiriir runtii anagu qiimo gaar ah noogu fadhiya qadarin gaar ah naga mudan ilaalin gaar ah nagu waajibina inaanu sameeyno midda kale dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhaxeeya xiriir xagga amniga ah amnigaas oo ka kooban marka ay Puntland iyo xiriir kala dhaxeeya la dagaalanka xagjirnimada iyo يعني terrorism wax la yiraahdo oo ay naga saacidaan la dagaalanka shabaab Daesh waxay kale oo xiriirkaas uu daaraya la dagaalanka burcadbadeeda la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood lagu sameeyo kheyraadka dalkeena ama se kalluumaysiga sharci darrada ah intaas oo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye ciidankaas waa ciidan ku dhow 2000 waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan ay ka hawlgalaan badiya biriba waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Ceelaayay joogaan waxay joogaan Garacad waxay joogaan Eyl waxay joogaan Isku Shuban waxay joogaan Xaafuun waxay joogaan Baargaal waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daesh iyo wixii la xiriira waxay joogaan Boosaaso waxay joogaan Ceelaayay iyo ilaa Laasqoray ka hawlgalaan ciidankaasi marka waxay kaloo ciidankaasi ka hawlgalaan biriga oo ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan shabaab buuraha galgala iyo calmadow oo yihiin ciidanka ugu xoog badan ciidamada ugu xoog badan meeshaas ka hawlgala iyagoo meelo kala duwan hadda aan carribaynin ay ka joogaan kulana dagaalamaan xagjirnimada iyo sharwadayaasha Soomaaliya kusoo duulay ciidankaasi waa ciidan tababaran aan oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye waa ciidan disciplin leh akhlaaq leh oo dhowrsan waa ciidan qalab ku filan oo Soomaaliya cid haysataa iyada ku shaqeeyo weey marka ciidankaasi hawsha ay hayaan waa hawl ay Puntland u hayaan waana hawl ay Soomaaliya u hayaan macnaha haday Puntland ka shaqeynayaan ma aha inay Soomaaliya aysan ka tirsaneen Soomaaliya u shaqeynayaan Puntland aad u ogtihiin meesha ay kaga taala Soomaaliya waxaanu joognaa difaac u horeeyay ee Soomaaliya waa Puntland meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheer ama badda Cas iyo Indian Ocean kaba dib kastoo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysa waa Puntland weeye marka haddii Puntland difaacaana Soomaaliya ay difaac u yihiin weeye macnaheedu waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaan ka codsano dowladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan ay joogaan waana ciidankuna waa jiraya tababarayaasha dowladda Imaaraadkuna waa ay joogayaan hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laabaan oo sii laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay ha noqdaan shabaab ha noqdaan Daesh ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonada ay uga sii shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba waxay idin sheegayaan marka sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday
maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland boqolaal milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso ballaarinta dekeda boosaasood iyo mashaariic kale oo soo socoto aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yidhaahdo freezomiska ay ka mid tahay waxa la yidhaahdo warshadaynta industrial parkiska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dowladda isu taga imaaraadka carabta marka way muuqataa in ama ha noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan puntland iyo soomaaliyaba ama ha noqoto taariikhda soo jireenka iyo xiriirka ganacsiga naga dhexeeya ha noqoto maalgelinta ay u sameynayaan soomaaliya ha noqoto intaasuba waxay noo cadaynaysaa noo sheegaysaa hadda marka cid annaga noola siman ama noo bedeli kartaahay inaysan jirin dowladda isudaga imaaraadka carabta na caddimaa oo khaladaha hor naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudur daaro una apologize gareeyo ayaga in aanu mararka qaarkood safgarwaada imaan kara dhibo yar baa dhici kara dhanka soomaalida ka imaan kara marka inaan taa laftigeeda aanu ka cudur daaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecel lahay lana shaqaynayno wanaagoodana aan runtii aada u qiimeynayno wey marka iftiin badan baa ii muuqda soomaaliya rajo baa ii muuqata soomaaliya isbedel weyn baa ka socda soomaaliya waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dowladda ismataga imaaraadka carabta iyo saaxiibadayada kale ee caalamkuba ay qeyb mug leh ay ka qaataan isbedelkaa socda ee soomaaliya ay dowladnimadeedii qarannimadeedii karaamadeedii sharafteedii ay dib ula soo laamayso meel fiican baan joognaa inaan hore usocnaa waxaana u sheegaynaa in aysan la-aantood aanan guushaas noo muuqata aanan gaari karin waxaan rabaa marka sidoo kale inaan wax yar ka iraahdo arrimo maalmo dhaweyd social media gaar ahaan ka socotay social media runtii wuxuu noqday dabcan waa fiican tahay mediahu inuu waa laba maarmaan muhiimad gaaru leeyahay laakiin mararka qaarkood waxaa moodaa social media inay noqdeen meesha soomaaliya laga duminayaba laga wado propagandada waxaan jira la sheegayo ciidamaha baxayay diyaaradda laga hor istaagay waxaasoo dhan oo been ah iyo khuraafaad ah oo baryaha laga waday media sax maaha marka waxaa wanaagsan media inuu ahaado mid mas-uuliyad wata responsible media loo baahan yahay waxaa been in la sheega ma keliya ma aha social media caadiga ah oo aan aqoon jirnay ayaa ujeeda mararka qaarkood warar been oo khalad inay sheegaya raalli ahaada saaxibada voice of America iyo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa ninka wariyaha haruun macruuf waxa uu qorayay oo beenta oo uu ka dhigay inay news tahay sax source fiican uu ka helay wax jira maha waxaasi marka waxaan rabnaa in aan laga shaqayn xumaan Soomaaliyeed wanaag Soomaaliyeed inaad yani aad ka shaqaysaan oo waxaa la rabaa aad waxa saxa sheegtaan wixii officialna dowladaha cidda saxda ah oo ka wareysanaysa inaad taqaaniin baa la rabaa marka waa idin sheegay inaad arrintaas ay sax ahayd waan ku dhiirigelinayna ku yani fatirsiinaya in aad warka kiisa saxda runta in aad tabisaan Soomaaliya waxay maraysaa xaalad aad u wanaagsan dhanka kalena xaalad kala guur ah crossroads baan joognaa marka meesha aan ka aadnaahi wadada aan qaadnaahi haddaan mid khaldan qaadnana meel khalad ku dhamaanaysa haddaan mid sax qaadnana meel sax ku dhamaanaysa waxaan rajaynayaa inaanu qaadayno midda saxda ah waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay guulaysan doonto horuna mari doonto annaga iyo saaxiibadayada oo wada soconaana aan gaari doono goolka aan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr baan idin rajaynayaa waxaan rabaa marka inaan laba kelmadood ku iraahdo luqad gaaleedka meel oran jir afso aan waxaa la yidhahdaa luqada ajnabiga luqad qalad meel okay right bismillah ar-rahman ar-rahim thank you for coming here. It's a great pleasure to be here at the BMBF base in Bosaso, Puntland. I came here to oversee the activities of the BMBF forces in Bosaso and in Puntland, and to see
the situation of the base here, and also to have a dialogue and discussion with the trainers and also with the commanders of the BMBF forces here in Bosaso. I would also like to make a statement regarding the long-standing relationship and the long-term relationship and the historical relationship between UAE and Somalia, and particularly their activities here in Puntland. UAE has a historical, as I said, relationship between a historical relationship with Somalia, and particularly Puntland, and is the biggest trading partner of Somalia. It is the dhows and the ships from UAE that are the backbone and the lifeline of Somalis, all over Somalia, and particularly Puntland. Thousands of Somalis reside and have a gainful employment in UAE, unlike any other country in the region. We cherish and value their relationship. UAE is a strategic partner in the fight against terrorism, against piracy, against illegal fishing, and against illegal human trafficking in Somalia, and particularly in Puntland. The UAE